Dallada ururka midnimo ay ku buuxeen dhalinyarada musharaxiinta kuraasta xildhibaanada Somaliland ayaa madaxweynihii hore ee muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay inuu markale faragelin qaawan ku hayo dhismaha guddiyada doorashooyinka gobolada waqooyi ee Somaliland. Afhayeenka ururka ayaa sheegay in Farmaajo la wareegay howlihii guddiga wasiirada ahaa ee Ra'iisul Roble xil saaray kala saarista iyo xaqiijinta xubnaha ka tirsan guddiyada doorashooyinka ee cabashada laga soo gudbiyay gaar ahaan kuwii Somaliland oo si toos ah ula wareegay maamulkooda taas oo caqabad hor ku noqon karta habsamo socodka heshiiskii doorashooyinka ee madashu gaadhay. Madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dib u soo celiyay guddiga doorashooyinka Somaliland xubnaha hore looga saaray oo shaqaale dowladeed oo ka mid yahay Khadar Xariir Xuseen sida ku cad warqadan oo madaxweynuhu u doortay inuu noqdo gudoomiyaha guddiga SED ee Somaliland. Madaxweynaha wuxuu sidoo kale barashar xad dhaaf ku hayaa beelaha iyo wasiirada ka soo jeeda waqooyi ee doonaya inay iska bedelaan xubnihii lagu eedeeyay ka tirsan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda oo markii hore keenay Fahdi Yaasin taliyaha NISA, waxaana taasi markhaati u ah in madaxweynuhu la wareegay xalinta saddexdii kiis ee guddiga wasiirada ah ay warbaahinta ka sheegeen in la isku haysto oo ay gudbiyeen inay xal ka gaaraan Ra'iisul Roble, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo Ra'iisul Ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed. Kiisaskaas oo ahaa xubno la soo dacweeyay beelahoodana doonayeen inay iska bedelaan, laakiin hadda madaxweynuhu uu ka diiday in la bedelo oo uu leeyahay idaaya in xubnahan ay sii joogaan. Faragelinta madaxweynaha awgeed waxaa hadda ismarwaa ka taagan yahay magacaabistii 17 xubnood ee Somaliland ku lahayd guddiga doorashada. Gudoomiye Cabdi Xaashi oo daba socday warkii guddiga wasiirada ahaa warbaahinta ka sheegeen ayaa warqad u qoray xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo guddiga wasiirada asigoo ka codsaday inay u soo gudbiyaan magacyada 7 xubnood ay guddiga ka saareen iyo 3 la isku haysto oo beelahooda doonayaan inay iska bedelaan. Laakiin warar aan helay ayaa waxay sheegayaan in guddiga wasiirada ay yiraahdeen arrinkaasi waxaa soo farageliyay oo nagala wareegay madaxweyne Farmaajo. Afhayeenka dallada ay ku buuxeen musharaxiinta xildhibaanada Somaliland ee midnimo ayaa ugu baaqay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo guddiga wasiirada inay dhowraan heshiiska doorasho ee lagu saxiixay Muqdisho si loo gudbo dhammaan khilaafka soo noqnoqday ee ka taagan doorashada Somaliland. Afhayeenka dallada musharaxiinta kuraasta gobolada waqooyi ee midnimo Axmed Ducaale ayaa hoosta ka xariiqay in Khadar Xariir Xuseen mar laba aqbali doonin in lagu soo celiyo guddiga doorashada Somaliland maadaama uu yahay shaqaale dowladeed sida ku cad tixraaca warqad ku taariikhaysan 11 bisha 6 2020 ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka, waxayna ka muuqanaysaa cadeynteeda warqadda ku muuqanaysa. Sidoo kale warqadda ku taariikhaysan 16 Abriil sanadkii 2020 ayaa si rasmi ah loogu magacaabay Khadar Xariir shaqaalaha dowladda ee Grade A sida ku cad warqadan. Ugu dambeyn, arrintan ayaa dhabarjab ku noqon karta habsamo socodka heshiiska dhawaan Muqdisho lagu gaaray ee qeexaya in doorashada dalka lagu soo afjaro muddo dhan 2 bil gudahood.